magaaladan Boorame xarunta gobolka Nowdal waxaa maanta ka dhacday munaasabad si weyn loo soo abaabulay isla markaana ay ku qalin jabinayeen 8 arday oo gabdhaha oo bartay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo tarbiyada diinta Islaamka kuwaasoo ka qalin jabiyay markaska culumta diinta Islaamka iyo barashada xifdinta Qur'aanka Kariimka ee Daarul Badrul Kubra ee ku yaala magaaladan Boorama xafladan waxaa ka soo qayb galay qaar kamid ah culumaadiinka waaweyn ee Boorama ku sugan aqoon-yahano waalidiin iyo qayb kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladan Boorama waxaana munaasabadan qalin jabinta ahayd ugu horeyn ka hadlay Sheekh Xasan Sheekh Aadan Badar oo ah maamulaha markaskan culumta diinta Islaamka iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka ee Daarul Badrul Kubra ee Boorama ku yaala wuxuuna ka sheekay marxaladihii markaskan uu soo maray iyo ardayda maanta ka qalin jabinaysa waqtigii koowaad ugu horeysay soo bilownay beriga horeysay waxaa loo kun iyo afartii ilaa loo kun iyo shantii baahay marxaladaas markaa marxalad ku kooban waa doorka iyo galabsi ku kooban laakiin mar labaad ayaan si degdeg u isboonaysiino aada u qurux badan sanadu markaa 2008 ayaa waxaan ku bilownay walaalayaal madrasadan xilliga habeenkii aynu kusoo biiranay xilliyadii hore ay sii jiri jiray waxaan ku bilownay guri halkaas waxaan halkaa ka bilownay madrasada qaybta habeenkii oo aynu ugu talagalnay dumarka berigii hore ma jirgin qaybta habeenkii oo duhurkii casarkii ugaan jirtay laakiin markii dambe ayaan ku darnay sanada markaa 2008 ayaan qaybtaas ku darnay annaguna ugu talagalnay dumarku inay ka faa'iidaystaan ilaa imkana qaybtii socotaa qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay waxaa kaloo madrasadu ay madrasada kale ka duwan tahay oo aan sheegi karno qaybta habeenkii sheegay oo madrasada magaalooyinka badan aan dhiganin iyo qayb bacda subaxa la soo galayo nooc marka salaad subax laga baxo la yimaado iyo duhurkii oo la yimaado kuwa kala midna taas iyo aroortii iyo galabtii intaba waa dhigtaa sidoo kale qaar kamid ah maamulada markasiyada ku yaala Boorama ee xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo culumta diinta Islaamka lagu barto ee lagu casuumay munaasabadan ayaa waxay ka hadleen xafladan waxaana hadaladooda kamid ahaa waxa weeyaan qofka Qur'aanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu aqrin badan ee ugu xifdi badan bal nabiga alayhi salatu wasallam wuxuu tilmaamay in Qur'aanka iyo Sunnada maalinta qiyaamaha ay cidii yani ilaalinaysay Qur'aanka kii xifdiyay ee ku dhaqmayay صون كلام أرتاي وفي آل ويالي أحكامتي سيما الواجباتي إلى ما القيامة والشفيعة قاليا. والأخواني وحال نفتي دينا فينا آل ودردار لها أولاد وحويان وعملاء صباحية وعملاء باهن إنا لهجاجيو وعملاء باهن إنا لتوسيو وعملاء باهن إنا لغصر تلقات فرابضا والدنا ولما بويدا وأنتينو وين دماغي نرسو مرتي كما شكي كرم لكن وحوين على الجود كينجا ما جودي كرمه محن العي وحوين حبايا يا معلم اللي سوتشيتي مكاسات الأدين وحيمرات البوين إلى أرض احترام qaar kamid ah ardaydan ayaa waxay xafladan ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen markaskan intii ay wax ka baranayeen waxayna soo bandhigeen anaashiid kala duwan oo soo jiidatay dhagaha dadkii ka soo qayb galay xafladan habibi habibi ya habib allah habibi habibi ya rasuul allah Cabdi Fataax Ahmed Hadwanaag News magaalada Boorama